ilaahay baa weyn ruuxu aamina awood leh marka hore dhammaantiin waan idin salaamayaa madax dowladeed iyo madax shirkadeedba waxaan si gaara u salaamayaa guddoomiyaha gobolka Maroodi Jeex Jaamac Xaaji Axmed oo isagoo ah markaad protocolka eegto ninka aynu martida u nahay ee gobolkan oo dhan maamulkiisa jooga markaa kolle gabagabayntaydu magaciisa iyo magacaygaba waan ku hadlayaa taasi waa taa horta runtii aad baan ugu faraxsanahay in aynu maanta u fadhino mashruucan ballaadhinta ama networka electricity-ga magaalada lagu hagaajinayo ee pilotka sidii la sheegay waxaa kaloo iyada farxada in leydhka oo laga hadlayo maanta stagekan uu soo gaadhay dee anagu stageyadan kasoo bilownay 1991 magaalada markaan imid dee generator yar baa bixi jiray oo baylaan u dhaweyno dee maantana in laga wada hadlayo inagoo dowladda u eego dadka dee aqoon-yahankii dadkii ganacsatada ahaa dowladnimadii intaynu isu wada nimid ka hadlayna sida leydhkii hore u marina runtii waa horumar berigii hore waxaa la odhan jiray water is life ama biyuhu waa nolol iminka electricity-ga laftigiisu halkaa biyuhu kusoo dhadhawaanaya hadduu istaago waxaad moodaa dadka noloshiina ka wada go-day isagiiyo internetkaba xaafadayda marka wax ka yara go-aanba sit roomka laisugu wada yimaadaa inta hore o dhan dadka arki maysa yaryarku meelay ku wada jiraan waxbay ku wada mashquulsanya markaa wax iswada taagaan ayaa sidii ay godadka laga soo wada baxo laysu yimaada waayo kol hadduu leydhku istaago wax damboo socdaaba ma jiro waa la isweheshanayaa markaa runtii leydhku waa nolol berigii hore waxaynu inagu adeegsan jirnay dee laambad yarun baynu arki jirnay leydhku inuu iftiinu yahay iftiinu ma aha wax kasta maanta isagay ku socdaa guryaheedna de haddaad eegto leydhkii baa kuu shidan radiogii baa kuu shidan telefishonkii baa kuu shidan qofkii shooladiisu ku shaqaysa halkiisii buu shidan yahay telefoonkii baa lagu charge garaynayaa wixii kale charginka u baahnaa baa lagu wadayaa qofkii fooniye hablihii ku rabay timeeye ku samey yacni qalabkan guriga yaalloo dhami leydh bay ugu dambeynta kaaga baahan yihiin oo ma garanaysaa talabaad leydhku waxa uu la socdaa living standardka ama heer nololeedka dadka iyo leydhku way wada socdaan hadba marka leydhku horumar sii sameeyo heer nololeedka dadkuna kor buu sii kacaa waayo waxaa garanayaa iyadoo laambad keliya oo xaafad kastaaba siraadato oo lacagta la iskaga qaado laambadda saacadi may jirin markaa iminka sadee dee laambadihii waxaa la shidayaa qalabkii waxaa la shidayaa umuurihii o dhan marka runtii waan ku faraxsanay leydhku talabaad dhaqaalaha hore u mariyaa horumarka ummadi gaadho iyo leydhku u wada socdaa beri baan nairobi joogay oon ka shaqaynayo waxaa isku xidhnaa marka la doonayo magaalada in la ballaadhiyo 2 kilomitr square la qabanayaa meeshaa la degi maayo haddaan wadada iyo leydhkiiyo biyaha la gelin horta hadda waa meeshii oo bannaan oo garoona leydhkii iyo biyaha iyo wadadaa la gelinaya laamidii marka la sameeyo leydhkiina la geeyo biyihiina la geeyo ayaa la ogolaanayaa meeshaa in la dego ganacsiga kaloo dham isagaa meeshaa tegaya hadduu leydh jiro oo biyo jiraan wadadiina tagto ganacsigu isagaa u guuraya laakiinse lama ogolaanayo shirkada inay meel dhisto isagoo leydh iyo biyo gaadhin marka runtii horumarka iyo dhaqaalahana qeyb weyn ayuu ka qaataa dabcan meelaha qaarkood dee waa loo baahan yahay in horumar laga sameeyo dalkeena aad bay u adagtay in warshada laga dhiso inta leydhku qiimaha yahay qiimaha leydhku aada u qaaliya nin saaxiibna baa beri warshad keenayoo markan 2 sanood ka maqnaa baan kusoo noqdo wuxuu igu yidhi warshadii waa tarareen Ethiopia geeyey oo maxaa kugu dhacay oo dee maan bixin karaa leydhka iyo waxa warshadu u baahan tahayba marka runtii dee in fikir la keeno cidna kuma canaanayo laakiin in fikir la keeno xitaa talo warshadaha xitaa qiimo gaara ma la siin karaa si gaara ma loo eegi karaa ma la siin karaa break inay muddada bal horta kobcayaan ay ma garanaysaa dee leydh helaan ama ma lagalaba talin karaaba ninka warshad keensada inuu marka hore horta shirkadaha leydhka la sii hadlo oo idhahdo war warshad baan keensanayaa wax siday wuxuu hagaagaya si loogala taliyo kuwa dee leydhka badan iyo tamarta badan cunaya iyo kuwa kale dee leydhku sida la sheegayba hore waa security amnigiiyo leydhku way isku xidhan yihiin meesha madow waad ka cabsanaysaa inaad marto hadda isagu waxba balaayaba jirin laakiin iftiinka waad soconaysaa marka leydhka iyo horumarkiisu runtii security buu keenaya shaqaalaysiin buu keenaya oo dee shaqaa laga wada helay oo dee intayna halkaa fadhida ama shaqaale ka aho ama saamiley ka aho oo dee waa la manaafacaadsadaa kolle ugu yaraanta shirkadda maanta Sun Power
dee kun qof way ka shaqeeyaan si ay uga shaqeeyaanba kunkaa qofnaana qof walbaaba wuxuu masruufaa reer 7 qof ah marka waxa laga yaabaa dee kun waan idhuuna waa malahayga inay ka badantayna laga yaabaa laakiin haddaan kunba ka soo qaado 7 kun oo qof baa manaafacadsado dee biil ka hela oo dee reerkii iyo wixii oo dhan marka iyada laftigeedu waa culays dhan oo dee bulshadii laga qaaday oo dee noloshii soo kordhisay runtii markaa waan ku faraxsanay laakiin marka anagu xukuumad ahaanay had iyo goor marka situationkana la joogo anagu xagga waxaan is dhigaynaa bulshada waxaan is dhigaynaa xagga bulshada oo ah waxaan la wadaa muxuu qofka bulshada faa'iido u yahay bari uu yahay oo dawaka iftiinkii baa yimid security baa yimid bahasha xuub caarada la sheegay aanad kala garanayn waxaan cirka maraya ma telefoon ba ma leer ba si kasto daarti u qurxisiyo wadadii waxba is wada haysto isku wada foorara waliba markay isku wada foorarsadaan iyad kala garan waayso sodhanaysa de waxaan si la kala yiraahdo cid garan mayso marka xagga way keenaysaa laakiin markan dhinacii bulshada ka eegno qiimo imanaya war qiimihii inuu isdhimo oo qiimo intan ka raqiisan oo ka macquulsan yimaado anagu markasta waan ku dadaalayna idinkana de danba idinku jirta waayo de in service-kiina lagu farxo adeeganaad samaynayso in bulshadu ku farxdo qofku ha ka xidhaahdo dee if iyo aakhiraba faa'iido leedahay marka bal horta xagga qiimaha xoog hal la saaro sidii mar kastaba wax lagu dhibi lahaa waxyaalaha masalan qiimaha kamid waxa kamid ah dee nalal xitaa inaad keentaan dalka baawarkoodu intan ka yar yahay oo cunaya koronto intan ka yar oo xitaa markaa laga yaabo dadka iyagoo koronto badan shidanaya inuu haddana qiimihii uu ka jabo oo dee leer 80 watt iyo leer 2 watt aan meel dhaweyd meel ku arkay tolo Sweden baa ahayd meel la tegay 2 watt anigii baa yaabay baa wadi 2 watt ma 2 volt isla 2 watt waa electricity anigii baa yaabay war waxaan labada ku shaqeynayso anigii 60ka iyo 100ka iyo meesha la gelin jiray marka dee bal nalalkaana la keeno waa muhiim mid kale oo muhiim ah waxa weeye modernization hala bilaabo wixii hala casriyeeyo wali sibaad u yar moodaa qalabkii adadkaaba la isticmaalaya casriyeyntii middan ku soo gabagabeynaya waxay tahay markan xaggii macmiisha ka hadalno horta leerka xaafadaha marka la joogo dumar baa u badan waxaanay saameeyaan iyagaa biilka loo geeyaa iyagaa bahalka eega iyagaa la murma inanka yara biilka sida iyo hadii goor hablahoo murmayaan arkaa meeshiinina hablaba kaba muuqdaan ragun baa meeshii isku koobay dee waxaan shirkadaha had iyo goor diida inay casriyeeyaan wax ama ilbaxnimada soo rogaan ugu dambeynta waa laga guuraa taaniga iga gunta waxa weeye haddii raggaa waaweyn meesha ku soo fadhido beri dhow waa laynaga guuray waa laynaga dabaymanee war hablaha ku soo dara oo xitaa haddaan leerka samayn karida kuwa biilka qaadaya ka dhiga oo kuwa customer service-ka bixinaya ka dhiga oo kuwa dumarka biilka u geynaya qancinaya ka dhiga oo kuwa shirkeena dee fadhiya ka dhiga haddii kale dee waxay noqonaynaa shirkad ragleeyo beri dhow waa la iska dabaymanee sidan hamoodina haddaba intaan laynaga dabayman dumarku waa inay ka soo qayb galaan shirkadda oo ay wax ku yeeshaan oo ay ka muuqdaan oo ay shaqaalo noqdaan oo ay noqdaan madaxda shirkadda ka mid noqdaan xitaa haddii aanu la gaadhin halkaa fog dee waxoogaa meesha ka muuqdaan haddii kale waxaynu ekaanaynaa dad dhinac jira sidaa awgeed anigu waxaan idinkula talinayaa shirkaddan horta runtii waanu mahadnaqayaa yacni 100% shirkadaha kalena waanu mahadnaqayaa kolley kasoo daba qaadan doona iyaga laftooda sooran doona dee gaadha annaga tartanka waxaa noogu jira faa'iido in la tartamo oo san baawar laga daba yimaado oo san baawarna hore halkaa uga sii dhaqaaqdo dee faa'iidaa noogu jirto kolley quality-ga iyo tayaduna way noo kacaysaa wanaaguna noo badanaya qiimuhuna noo jabaya runtii dhalinyarada waan ku faraxsanoo dhalinyaro badan baa san baawar ka muuqata oo ma garanaysaa weliba mutacalimiin oo aan arkayaa inay shirkaddii soo kacayso taa laftigeedana mahad aada ayaan ugu celinayaa maamulka shirkadda hadalka waan dheereeyey aad baan idinku mahadnaqayaa